qarax iyo rasaas ayaa caawa laga maqlayaa qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho oo dhanka kalena saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay toogteen qaar ka mid ah raggii soo weeraray xarun ciidanka nabad sugidda ay ku leeyihiin agagaarka madaxda Cabdiwahaab Xuseen Muxiidiin oo warkeena caawa soo saaray arrintan la socday ayaa stuudiyaha ila jooga Cabdiwahaab farxiyo aad baad u mahadsan tahay magaalada Muqdisho caawa qaraxyo ayaa siyaabo kala duwan uga dhaceen qaraxyadan waxay ka dhaceen afaafka hore ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa qarax ka dhacay ka oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay isla markaana ku soo dhawaaday albaabka laga galo ee madaxtooyada Soomaaliya ka oo la sheegay in ciidanku ay rasaas ku fureen isla markaana halkaasi uu inta kadib ku qarxay sidoo kale farxiyo waxaa la sheegay in rag hubeysan oo ilaa iyo 5 tiradooda lagu qiyaasay ay galeen xerada dhagaxtuur oo ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya ay joogaan waxaana la sheegay in rasaas ay ilaa iyo waqtigan ay ka dhacayso sidoo kale farxiyo wararka aan helayno waxay sheegayaan in ragga xerada dhagaxtuur dhankeeda u degtay ilaa iyo 5 lagu qiyaasay waxaana wararka aan helayno ay sheegayaan in 2 ka mid ah la dilay halka ilaa iyo 3 dagaalame ilaa iyo waqtigan la sheegayo in ay ka dhex dagaalamayaan kuwa oo la sheegay in waqtigii gaarigu uu halkaas ku qarxay ka hor ay u degteen xerada dhagaxtuur oo ah xarun hadda ay ku sugan yihiin ciidan ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya intaas kadibna waxaa la sheegay in halkaasi rasaasta madaxtooyada ciidamada ilaalada ka ah ee koofiya guduud loo yaqaan oo dhowr jiho ka soo rideen dhanka wadada ka imaanayso ceelgaabta iyo sidoo kale afaafka hore ee madaxtooyada ciidanka ku sugnaa ay rasaas ay rideen intaas kadibna markaasi waxaa sidoo kale la sheegay in qarax uu ka dhacay halka loo yaqaano isgoyska ceelgaabta sidoo kale farxiyo waxaa xusid mudan isgoyska kilometer 0 jagboonta ciidamada nabad sugidda ay ku leeyihiin waxaa ka dhacay qarax ka oo isna loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay isla markaana la sheegay in halka baakinka loo yaqaan ama gaadiidka ay dhigtaan dadku lagu qarxiyo gaarigaas oo ah meel u dhow hotel waqti dhow halkaasi laga dhisay oo doorbin la yiraahdo qaraxaas waxaa la sheegay in gaadiid halkaasi ku baakinaa intooda badan burbur uu soo gaaray oo burbureen sidoo kalena hotelka albaabka hore ee laga galo ama qaybaha ugu horeeya sidoo kale burbur uu soo gaaray oo dhismaha halkaasi ka ag dhawaa dhammaantood intooda badan ay burbureen waxaana sidoo kale la sheegay farxiyo in khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac intaba iskugu jiro uu ka dhashay walow ilaa iyo hadda aan la xaqiiji karin inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay balse waxaa la sheegay in halkaasi dad ku sugnaayeen oo gaadiidna uu ku baakinaa sidoo kale halka gaadiidka lagu baakimo markaasi qarax uu ka dhacay hotelka la yiraahdo doorbin waxaa waqtigaas la sheegay in afaafkiisa hore dad markaasi ay ku sugnaayeen kuwa hotelka inay ka soo baxeen la sheegay iyo sidoo kale kuwa hotelka waqtigaasi galayay sidoo kale halkan loo yaqaano kilometer 0 waxaa hotelka la qarxiyay ee ku yaalo waxaa u dhow oo dhanka degmada Shibis ka jiro xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale xarunta hay'adda nabad sugidda ay leeyihiin ayaa habarqadiijo loo yaqaano ayaa iyaduna u dhow lamana oga farxiyo ilaa iyo hadda qaraxyadan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay ilaa iyo waqtigan magaalada Muqdisho qaybo kamida waxaa laga maqlayaa rasaasta inta ugu badan waxaa markaas ridaya ciidamada dawladda Soomaaliya laakiin wararkii ugu dambeeyay aan helayno waxay sheegayaan in halka loo yaqaano dhagaxtuur rag hubeysan ay ku jiraan ciidamada dawladana ay markaasi isku diyaarinayaan inay markaasi sidii looga soo saari lahaa oo kooxaha la sheegay in halkaasi ama ragga la sheegay in halkaasi ay ku jiraan ay dadaal ugu jiraan sidii markaasi looga saari lahaa marka farxiyo xogtan keeno intaas ayay ku eg tahay
dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay qaraxyada daqiiqadihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada muqdisho ma ahan kuwa ilaa iyo waqtigan si cayiman loo sheegi karo balse wixii ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena ayaan dhegeystayaasha ugu soo gudbi doonaa sidoo kale farxiyo halka loo yaqaano baar ubax xarun ay ku lahaayeen ciidan ka tirsan ay ku leeyihiin ciidan ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya waxaa la sheegay in bam gacmeed lagu weeraray qasaarana uu jiro qasarahaasoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka uu gaarsiisan yahay waxaa la sheegay in ciidanku ay rasaas rideen oo gebi ahaanba xaafadda baarubax iyo agagaarkeeda ilaa iyo waqtigan laga maqlayo rasaas laga maqlayo waxaa la sheegay in sidoo kale ciidamadu ay halkaasi baaritaano ka sameynayaan marka farxiyo xaaladda guud ee magaalada muqdisho ayaa caawa waxay tahay mid jahwareera maadaama dadku ay markaasi maanta ay jimco ahayd oo siyaabo kala duwan ay magaalada ugu damaashaa tageen isla markaana qaarkood ee wadooyinka ay ku xirmeen oo markaasi xaaladdu ay tahay mid cakiran waxaana farxiyay xusid mudan in shalay kulankii khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada Soomaaliya laga sheegay in gaari walxaha qarxa uu ku jiro magaalada ka oo la sheegay in loo soo ekeysiiyey shirkadaha ka howlgala garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan gaadiidka ay ku shaqeeyaan qaarkood in loo soo ekeysiiyay ayaa la sheegay oo wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegay in kulanka golaha wasiirada uu warbixin laga dhageystay ay ku jirto in gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo oo magaalada ku jiro loona baahan yahay in ka hortag lagu sameeyo iyadoona ay xusid mudan tahay in shacabka ay ka dalbadeen in laamaha ammaanka ay ku wargeliyaan haddii ay helaan xog la xiriirto marka farxiyo xogta aan ka hayno inta ay ku egtahay faahfaahin intaa ka dheerna kama hayno wixii ku soo kordhana dhegeystayaasha wararkeena iyo barnaamijyadeena ayaan markaas ugu soo gudbi doonaa haddii eebba uu raali ka noqdo wariyaheenna cabdiwahaab xuseen muxiidiin ayuu ka